بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa إن شاء الله تعالى aan geli doonaa muxaadaro uu sheekh Mahad Daahir uu noo soo jeedinayo. waxaa lagu iibin doonaa cabitaan iyo ganacsi keegag iyo macmacaan wax noocaas ah. lacagta insha Allah taala ka soo baxda arintaas waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo abaaraha abaarihii Soomaaliya ka dhacay dadkii walaalaheena ahaa ee ku dhibaataysnaa wadankii. dadkii soo qabanqaabiyeen waxaan ku leenahay jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum. insha Allah taala muxaadaradii aan u balansanayn ayaan hadda geli doonaa. muxaadarada magaceedu waxa weeye axkaamu ramadaan. waxaa inoo geli doona sheikhuna alfaadil sheekh Mahad Daahir. falyatafadal fadilatuhu mashkuuran ajuuran insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم التناد. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا ليال بشهر رمضان هي أحكام تيدا كلمة عوانك أي وضتا. وحين كهد لدونا مركة أبوه الرئيسة البشارة بقدوم رمضان. قفك مسلم كائن وكفرحه سوق لتانك بشهر رمضان. لبا إثبات بدخول رمضان. رمضان تلحق السقناتا
maxaa lagu ogaanayaa bishaanu inay tahay bishii barakaysnayd 3 shuruudu ashuhuud dadka hadalkooda la aqbalayo oo marqaati noqon kara bishii inay bilatay maxaa loo shardiyeeyaa midda afaraad hadday bishu bilato adduunka hal meeshii laga arkay muslimiinta oo dhan ma aragtidaa bay ku soomayaan mase waddan walba muslima aragtidiisa gooni ah ayuu ku soomayaa iyo aragtida bisha midda shanaad waxaynu ka hadli doonaa tacriifu soom maxaa la yidhaahdaa tan lixaad mataa furida sawmu alramadaanu goormaa bisha ramadaan la faral yeelay tan toddobaad waxaynu taaban doonaa haddii rabbi idmo xukmu siyaami ramadaanku xukunkiisu tan sideedaad anwaacu sawmi noocyada soonku uu yahay tan sagaalaad maraaxilu siyaami ramadaan marxaladaha iyo heerarka uu soo maray ramadaanku tan tobanaad shuruudu wujuubu sawm soonku muxuu waajib ku yahay shuruuddiisu waa maxay tan 11aad shuruudu lfitri bilmufatiraat waxyaalaha shareecadu ay tiri waa lagu afuraa maxaa loo shardiyeeyaa tan 12aad xikamun wa asraarun tarbawiya xikmadaha iyo asraarta iyo waxyaalaha qorsoon oo soonka ku dhex jira tan 13aad fadaa'ilu sawmi fadliga ilaahay xaggii uu soonku ka leeyahay iyo qofka sooma tan 14aad aadaabu sawmi soonka aadaabta iyo waxyaalaha uu leeyahay tan ugu dambaysa masaa'ilu mutafarriqa waa mas'alooyin aan soo aruuriyey oo inta badan culimmada la weydiiyo ayaan ku soo koobay oo aan rabo dadka intaysan wax weydiin waxaa la arkaa su'aalahoodu inay ku yimaadaan su'aalaha aan sheegi doono albishaaratu waaltahni'atu biquduumi shahri ramadaan waa mas'alada noogu horaysa walaalayaal qofka muslimka ah ama qofka basharka ah caadadiisa iyo dhaqanka ilaahay ku abuuray waxa weeye almalal wasa'aama wuu daalayaa wuu noogayaa hal waddo iyo hal si kuma socon karayo sidaa darteeda ayaa shareecada islaamku waxay samaysay tanwiic saysan dadka muslimiinta aysan uga caajisin cibaadadii rabbi u abuuray waxaa lagu leeyahay maalinka gudihiisa 5 salaad baa kugu waajiba sanadka oo dhan hal bil baa kugu waajiba ayaa lagu leeyahay haddaad bilihii hore qaladaad badan kaa dhaceen waxaa lagu siiyey jaanis bil lugiye way ka qayr badan tahay bilaha kale waxaa lagu siiyey bil beydka ilaahay la booqanayo waxaa intaas sii dhex gala waxyaalo badan oo khayr marka qofka muslimka ah waxaa loo baahan yahay waqtiyada raxmaanku raxmadihiisu ay soo degayaan inuu gacmaha u horsado maxaa ku qadiyey maxaa khayrlaawo kaa dhigay maxaad bilaha aad u kala sooci leedahay ma waadan ogeyn bilaha ilaahay inuu kala fadilay mase walaalayaal annagu waxaan xifdisannahay bilaha gaalada iyo dhaqamada gaalada ayaan xifdisannahay wallaahi waa ceeb qof muslima oo aan ramadaanta aan ka aqoon bilaha yanwa iyo februar iyo ramadaan agtiisa inay isku mid ka noqoto waxay ku tusaysaa qofkaasoo qof eber ah oo diinta ilaahay bannaan amase mataqaanaa wax uu ka yahay ay iska yartahay gaal ma aha laakiin waa qof khayrkiisa uu yaryahay